hay-adda Restore Somalia Foundation oo loo soo gaabiyo RSF oo kaashanaysa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliya ayaa magaalada Toronto ku qabatay kulan wada tashi ah oo ay isku arkeen dhalinyarada Soomaalida Toronto qaarkood kuwaas oo qayb ka mid ah ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo cimilada iyo madaxa wadaxaajoodyada cimilada ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya ahna la taliyaha sare ee wasaaradda Mudane Cabdilqani Barrow. Mudane Cabdilqani Barrow ayaa dhalinyarada la wadaagay mudnaanta cimilada ee Soomaaliya iyo aragtiyada wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee wadaxaajoodyada caalamiga ah. Dooddu waxay diiradda saartay arrimaha qaran ee muhiimka ah oo ay ka mid yihiin saameynta deegaanka ee dhuxul soo saarka, dib u habeynta socda ee la xiriirta isbeddelka cimilada iyo muhiimadda ka qaybgalka cimiladeed oo loo dhan yahay kana dhasha hogaaminta dhalinyarada. Hay-adda Restore Somalia Foundation RSF ayaa horey u qabatay kulamo wada tashi oo qurbo joogta lagu dhiirigelinayo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen dadaalada ka socda dalka. Kulankanna wuxuu qayb ka ahaa hindise ballaaran oo ku saabsan qurbo joogta oo ay hogaaminayso wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, waaxda arrimaha qurbo joogta oo wada shaqeyn la leh RSF, kaas oo ujeedkiisu yahay xoojinta ka qaybgalka qurbo joogta ee horumarinta qaranka si waafaqsan siyaasadaha iyo mudnaanta dalka. Kulamadan oo kale ayaa lagu sheegay inay muujinayaan isbeddel cusub oo ku wajahan ka faa'iideysiga khibradda Soomaalida ku baahsan qurbaha si loo horumariyo mudnaanta qaranka iyadoo qurbo joogta loo aqoonsanayo tiir muhiim u ah dadaalada kala duwan ee horumarineed ee ka socda dalka. Cabdilqani Barrow ayaa sharaxay dadaalada ay wado wasaaradooda ee la xiriira deegaanka iyo cimilada, waxayna dhalinyarada qurbo joogta ah ee ka qaybgal kulanka ay weydiiyeen su'aalo kala duwan kuwaas oo ay si wada jir ah ugu jawaabeen Cabdilqani iyo madaxa Restore Somalia Foundation RSF Hani Maxamed. Kulanka kadib ayaan Cabdilqani Barrow weydiiyey muhiimadda dhalinyarada ay u leedahay kulamadan oo kale. waxay arrin aad u wanaagsan waxaan ugu wada casuumay meesha Restore Somalia oo ah organization ka shaqeeya sidii ay u wacyigelin lahaayeen ama ay ula shaqeyn lahaayeen isku xiri lahaayeen wadankii iyo Somali Youth Diaspora adduunka kala nool. Groupkaas oo ku kulanay hogaankooda sida Hani aan ku kulanay Belém Brazil, kadibna aan ka wada hadalnay in wasaaraddu ama dowladdu u furan tahay inay la shaqeyso dhalinyarada yaryar ee qurbaha ku wada waxbaratay. maanta halkan shirka uu ka dhacay waxaan u sameeyay presentation ku saabsan waxqabadka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, qorafta mashaariicda ay sameeyay ayagana su'aalo badan bay nagu weydiiyeen, aad ay uga faa'iideen, aadna u soo dhaweeyeen presentationkan u sameeyey iyo discussionkii ka dambeeyey waxyaabo badan waddanka ogaadeen dowladnimada dib u dhiska dalka ka socoto. Organizationka Restore siday ballan qaadeen maantay aniga ka qaybgalkayga waxaa wasaaradda anoo matalaya wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada wasaaradda u horreysay waxay sameyn doonaan wasaarado kale inay casuumaan oo ka mid ah dowladda Soomaaliya. anigana aad ayaan ugu maaragtay ugu riyaaqay sida ay dhalinyaradu diyaar ugu yihiin inay ogaadaan wixii dalka ka socdo ama sida ay u caawin karaan. maadaama Restore Somalia Foundation ay had iyo jeer wado isku xirka qurbo joogta iyo wasaaradaha kala duwan ee Soomaaliya si ay khibradooda iyo aqoontooda ugu biiriyaan dadaalada ka socda dalka, ayaana Hani Maxamed oo ka mid ah madaxda RSF waxaan weydiiyey muhiimadda uu kulankan u leeyahay ka RSF ahaan iyo tallaabada xigta ee ay doonayaan inay qaadaan. waa mahadsantahay. maantadan inta maxaa suga imaanay Toronto wadanka Canada, maxaan ku sameynay youth engagement in climate for Somalia, and kulankan maxaa isla aas-aasnay wasaaradda Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Somalia, waaxda qurbo joogtada Diaspora Affairs iyo wasaaradda Environment and Climate Change of Somalia. kulanka mainly muxuu ahaayay inaan dhalinyarada diasporada aan ku xirno wasaaradda oo Environment and Climate Change of Somalia si ay u arkaan noocay ayaka ku caawin karaan Somalia in advancing their climate action iyo roolka badan ee ka kala qaadan karaan. dhalinyarada maanta inta soo keena maxay ahaayeen dhalinyaro oo Canada ku dhashteen, boqolkiiba 90 taasay u badnaayeen oo Canada ku dhashteen wax ku barteen
heer oo jaamacad gaareen, kuwa oo jaamacadda dhameeyeen, kuwa oo jaamacadda hadda lugta kula jiraan. Marka inaan tusno fursadaha bannaan iyo situationka ee Soomaaliya climatekeeda hadda tahay iyo qeybaha ka qayb qaadan karaan ayaga as a Somali diaspora. anikane Restore Somalia Foundation markaan ahanane shaqadeen ugu muhiimsan maxaa waaye inaan oo dhalinyaradii iyo diaspora community aan ku xirno wadankooda originally their homeland inaan Soomaaliya aan ku xirno because maxay soo barteen skills kala duwan ay qabaan, education oo kala nooc badan ay qabaan. So they can contribute as a diaspora inay wadankooda horumariyaan ayagina dhaqankooda iyo culturekooda iyo dadkoodana ay ku jiraan. dhalinyarada ka qaybgalay kulanka ayaa u muuqda kuwa aad u daneynaya arrimaha isbeddelka cimilada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka jira. Haashim oo kamid ah dhalinyarada ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo cimilada oo ka qaybgalay kulanka ayaa iga warramay faa'iidada kulanka. Alhamdulillah, they benefited a lot because you don't often get people that come from Wadanka that can come and speak to you about the issues that they see and how the youth can actually support them. So alhamdulillah, this is very beneficial. Added also the way, and alhamdulillah, this has been amazing. And I feel like people really left energized and motivated to be able to both help their countries back home and in their local community. So alhamdulillah, like there's a growing, as you said, there's a growing body of Somali diaspora that work in the climate space. And alhamdulillah, they have tons of expertise and tons of energy. And what they found is that actually the ministry is really open to being worked with, to be collaborated with. So that's great news for us. Alhamdulillah, they can take a huge part in being able to build their country better and make things, work in the best direction possible. So alhamdulillah, this is all great news. Myself, I studied environment, I work in the environment space. So seeing this happen is something that I've always wanted. So I'm so happy that these things are happening and inshallah we can do great together. kulamadan oo kale oo la isku xirayo dhalinyarada qurbo joogta iyo wasaaradaha kala duwan ee dalka ayay dad badan u arkaan arrin muhiim ah iyagoo RSF ku amaanay dadaalada ay ku bixinayso isku xirkaasi.